soo dhawaada waxaan ahay Sacad Abbas halkanina waa Shabeelle Bank bangigii riyada bangigii rajada himiladii rumowday ee shacabka deegaanka Shabeelle Bank furihii aad faqriga kaga bixi lahayd dadka shaqaaloobay ilaa hadda shaqo ka helay ilaa 884 qof baa shaqo ka shaqaalooday maalgelinta ay qaateen ilaa 3 bilyan lacag ka badan baa horay dadka loogu maalgeliyay adeegyada aan bixinay sida mobile banking hero cash iyo ogtiin sida macnaheeda bulshada ay u isticmaasho meel walba uu caawiyo Shabeelle Bank waa nafsi baxay muddo naawulayeen bulshada Soomaaliyeed ee duruufaha kala gadisan la daalaa-dhacay muddada dheer waa bangigii u horeeyay ay Soomaali dibadda u taagto waa hantidii shacabka Soomaaliyeed oo qof waliba saamigiisa ka gatay Shabeelle waa bangi aan la kala xigin oo aad xilli waliba ka mid noqon karto mulkiilayaashiisa Shabeelle Bank marka mas'uuliyadiisu ay ka saaran tahay inuu horumaro dawladda ganacsatada shacabweynaha kan deegaankeena iyo kuwa kale kasban karnaba iyo qurba joogta oo iyaguna dhaqaale badan haysta oo haddii ay qayb ka noqdaan oo inta loo furo diaspora account looga furo ay lacag ku soo ururiyaan bangigu kor u kici karo wuxuu qaban karaana waxa weeye waxa aad arkiiseen masaakiinta milyan 120 iyo 200 iyo nolosha ka sameeyay inay u sii socdaan la rabaa iyagu in ka istaagaan waxaan rajaynayaa in shuruudaha ay ku jirto bangigan lagu sameeyay in uu sii socdo adeegii microfinance masaakiintu laakiin dadka kale iyagu wax inta dhaama haysta laakiin wax urursan oo wax ku samaystaan aan haysan wixii lagu caawin lahaa bangiga inuu soo kordhiyo Shabeelle Bank waa bangi fursado shaqo oo badan u abuuray dhalinyaro iyo qoysas Soomaaliyeed oo noloshooda iyo tan qoysaskoodaba wax badan ka bedelay maanta alaabta laygu siiyay shaqa dhaqaajin iyo dardar iyo dad isku soo tar iyo fadhi kaga kac ayaa laygu siiyay waan ku qaabilay waan ku qaatay waan ku dhigtay badeecadii laygu siiyay alaanka ay makaawan haystaa dabad wax dadiima jiro adeegama biisho cid kale aheena taakula kuma lihi adduunyo ma lihi neef dameersan cadna Allah ka dhigo leeyahay ma jirto ilaa maalintaas maalinka maanta ee dukaankaas leeyahay camiray waxaan leeyahay caruurtii iskuulaadka kii sare iyo kii hoosaba waan leeyahay ma kooga ma laba nambarka lagu wareejinaya nambar sareedkaaga horna ii sheeg geediga iyo hayaanka lagu dhisayay bangi Soomaali u gaara ayaa ahaa mid muddo soo socday waxayna ahayd rajo ay dad badan sugayeen dadaalka dibadda lagu taagay bangigan ayaa soo maray wajiyo dhowra bangigu waxa uu hayaanka ka soo bilaabay hay'adii lacagaha yaryareed ee Somali Microfinance taas oo ay sanado badan dadku ku najaxeen xilli uusan ka jirin deegaankan adeeg kale oo maaliyadeed isagoo microfinance bulshada soo anfacay wax badan oo soo qabtay runtii oo adeegyo fara badan iyadoo adeeguba una ka jirin adeeg maaliyadeed ay u bilowday kadib dadaal badan ay sameysay dad badan shaqo loo abuuray kuwo maaragtay intay ama ka qaateen mustaqbalkooda bedelay ganacsiga ka sameeyay horumar fiican keenay marka hadda bangigu markuu yimid waxa la rabaa inuu adeegyadii hore u sii jirayna uu sii xoojiyo adeegyo ka ballaaran adeegyadii horena uu bixiyo bulshadana marka shaqo abuurkii ay uga baratay iyo ku ka ballaaran oo ka waaweyn ka miisaan weyn inaan siino Shabeelle waa maalgeliyihii mustaqbalkaaga waana isha aad ka heli lahayd deyn shareecada waafaqsan oo ku rumayn karta rajadaada ganacsi ay waaxda shariicada islaamka ee bangiga waxa lagu talagalay in ay fiiriso dhammaan hawlaha uu bangigu qabanayo inuu shariicada islaamka waafaqsan yahay iyo in kale waxay ku daba gashaa dhacdooyinka bangiga uu qabto ee ka dhaca xagga maalgelinta xagga heshiisyada uu bangigu la galayo dadka dibadda bangiga Shabeelle wuxuu fuliyaa adeegyada islaamiga ah ee wax lagu maalgeliyo bangiga ayaa sidoo kale albaabada u furay shaqaale duwaankoodu gaadhayo ku dhawaad 900 oo qof bangigu waxa uu si xawli ah u dardargeliyay geedi socodka shaqo kadib markii uu ogolaansho rasmi ah ka helay
banka dhexe ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Ethiopia. Alxamdulillah wuxuu Ilaahay nagu guuleeyay inaan bankigii liisankiisii aanu soo gaaro January 5 2022 ayaan National Bank ka soo qaadanay dokumentigii liisanka ee bankinimada oo hadda noqonaysa muddo hal sano. dhanka kale marka la fiiriyo Shabeelle Bank waa bankiga ugu daayaray diiwaangelisay Ethiopia sidoo kalena waa bankiga ugu waxtarka badan shacabka deegaanka Soomaalida. microfinance-ka ayaa ay maalgeliyay dukaanka yaga ay camray wax yarna waan sii haystay aad iyo aad baan uga faa'iidadan ka faa'iida waxa kamid ah hadda mar horaan ka qaatay waan celiyay haddana mar labaad baan ka qaatay aad iyo aad baan uga faa'iiday guriga waan ka dhistay arintayda jaamacadaha waan ka dhameeyeen oo intaas waan ku hawlgalayaa aad iyo aad baan uga faa'iidadan ka helay wax la koobi kara ma aha khayr Allah siiyo iyaga maasgeliyay iyaga lacagtan iyo xoolaha ay dhalay siiyay bilo kooban uun kadib waxa uu suurtageliyay Shabeelle Bank inuu yagleelo dhismo fooqa oo hadda noqday xarunta dhexe ee bankiga halka ay bankiyo sodomeeyo sanadiga kan maslaha dhigtay aysan hirgelinin waxanti ma guurta head office-kii xafiiskii guud uu xafiisku fadhiisan lahaa yaan diyaarinay oo dhismaan galay waliba inaan macnaheedu 2 fooq aan ku darsano dhismahanagii aan ka iibsanay qoladii ka sidoo kale branchiyadii in la bedelaba dhamaantood branchiyadii markii hore qaabka microfinance u diyaarsanaa inaan dib u habayn ku sameeyno ballaaran oo aan dhamaantoodba la dhihi karo waa la bedel waxaan ugu dambeyn ku guuleysanay in dhammaan shuruucdiina looga baahnaa oo dhan ee shaqada aan ku bilaabi lahayn aan dhamaystirno hadda waxaa diyaar noo ah 22 branch baan liisankoodii soo qaadnay oo banki branch noqonay 6 kalena waan dalabnay maadaama la rabo adeegii microfinance inuu sii jiro shaqeeyo waxa loo qaybiyay bank branch oo branch sida bankiga standardkiisa u shaqeynaysa branch hoosaad iyo mid microfinance sidii u shaqeynayso intaas oo kaliya kuma koobna Shabeelle Bank balse waxa uu sidoo kale si weyn uga qayb qaataa arrimaha tabarucaadka iyo sidoo kale taakuleynta danyarta waxa uu sidoo kale ka qayb qaataa dhamaanba arrimaha bulshada abaaraha iyo sidoo kale dhiirigelinta dhalinyarada iyo da'yarta deegaanka Soomaalida waxaan sidoo kale ka qayb qaadanaa oo bankigu mar walba u taagan yahay arrimaha bulshada mar walba waxyaalaha bulshada culeysku ku ah ee dhibaatooyina ee wax qabadka guud ee ummadda wax lagu qabanaya bankigu had iyo jeer uu ka qayb qaataa inuu door ka qaato uu si shakhsi ah bankigu ugu bixiyo lacag dhaqaale ugu bixiyo baan sameynaa bankiga uu yoolkiisu ahaa in la kubciyo garaadka aqooneed ee xirfadlayaasha ka howlgala bankiga ayaa sameeyay tababaro dhibaa u xaadhaya in la dardargeliyo adeega maaliyadeed si kor loogu qaado qanaca macaamiisha tababarada xilliyada kala duwan shaqaalaha lagu gaashaamay ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa hadda shaqaale kor u dhaafaya 354 customer ee telefoonka nagala soo hadla anagoo waafajinayna sharciga macaamiishana adeega waxay ku heli karaan haddii meel fog macaamilku joogo uu nala soo xiriirayaa meel halowkaas ugu dhow ama xarunta ugu dhow tagaya waxaan nala soo hadashiinayaa xarunta cidda joogta waan u fudaydinaynaa inta laga qaado aqoonsigiisa iyo wixii sharci laga qaado ayaan u fudaydinaynaa haddii uu waaxda noogu yimaado isagoo caga oo socda oo xarunta noogu yimaadana sidoo kale 5 daqiiqo ka yar ayuu ku heli karaa adeeggiisa anagoo waliba qancinayna oo sida ugu wanaagsan ugu shaqeynayna maximum 5 daqiiqo ugu adeegnaa waa change number haddii u baahan yahay ugu yaraan maximum 2 daqiiqo ku heli karaa lacag celin hadday noqoto aduu lacag celinta uun baa ugu culus charge back waxaan ku celinaa ilaa 5 daqiiqo waa intaan xaqiijinayna dhanka kale Shabeelle Bank waxa uu leeyahay bahwadaag u suurtagelisa in adeeg hufan oo degdeg ah la gaarsiiyo bulshada waxaana kamid ah xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo hay'adaha aan dawliga ahayn oo ay kamid yihiin Oxfam, IRC, Save the Children, Mercy Group, WFP iyo BSMB higsiga iyo himilada fog ee bankiga ayaa in bulshada muslimiinta ah ee dalkan Ethiopia gaar ahaan kuwa deegaanka ay helaan hanaan maaliyadeed oo salka ku haya shareecada Islaamka bulshada xoolo dhaqatada u badan ee deegaanka waxa uu ka kaalin doonaa inay helaan maalgashi iyo deymo ay wax kaga bedelaan mustaqbalkooda waana riyo ay muddo dheer ku haminayeen bulshada xoolaha ku raacda walwaal sulul bulaale ilaa dhaamoole iyo faafan
kuma koobno oo keliya intaasi balse bangigu waxa uu si weyn uga qayb qaataa horumarinta magaalooyinka deegaanka Soomaalida bilicda iyo maalgashiga dhulka hooyo waxa uu sidoo kale bangigu qorsheenayaa muddo gaaban gudaheed inuu 95 degmo ee deegaanka Soomaalida uu ka dhiso dhismayaal isaga uu leeyahay isla markaasna bixiya adeegyada kala duwan ee Shabeelle Bank sidoo kale waxaan weydiisanay dhammaan degmooyinka iyo magaalooyinka dhul inay nasiyaan inaan dhisna rabno marka oo magaalada meel walba oo annagu macnii magaalada inaan qurxino guriyo qurux badan oo multi purpose noqon kara inaan annaguna xafiisyo ka sameeyno magaaladiina qurux soo kordhinaya annagana xafiiska annaga hoosta noqdo meel walba oo la tago degmo walba deegaanka kamid ah waxa qorshe noogu jira inaan xafiis ka dhisano annagu ma aha inaan aan karaysano kaliya taasoo macnaheedu tahay magaalada inaan quruxdeeda qayb ka noqonayno oo wax qurux badan oo soo jiidasho leh marka la yimaado sidoo kale magaalooyinka dhismahooda dadka raba inay ganacsiyo ka sameeyaan oo guriyo dhisaan oo hoteelo dhisaan oo meel ganacsi dhisaan inaan iyagana garab siin oo aan ku caawino maalgelin sharciga islaamka waafaqsan si ay u dhistaan oo magaaladeenu ay u qurux badnaato marka guud ahaan magaalooyinka deegaanka qorshe waxa noo yaala inaan horumarino dhisno oo bilicdooda kor u qaadno ka qayb qaadano Shabeelle waa banki hanti kuwa waxa uu kugu adeegayaa dhaqankaaga afkaaga hooyo waxaana kugu diyaarsan shaqaale u jajaban qancinta iyo raaligelinta macmiilka adeega Hello Cash waa xaga khaldan binka ay khaldamay shaqaalahan aad u mahadsan yihiin markasta si furmo hufan bay noogu shaqeeyaan macaamiisha bangiga Shabeelle aan oo maartay shaqalaan mar walba ku xirnaay kaas aan u nimaaday adeegaas marka insha Allah aan u nimid bangiyada hormaana fahmayno waxa weeye bangiga ajnabi ahaayeen kuwa shacab Soomaali ay leeyihiin marka aad baan ugu mahad celinaynaa baahida aan u qabnay inay maartay ay noo dabooleen ka anaguna insha Allah cid kasta soo farnaysan oo ku soo dhaweynaa insha Allah binka adu xumaado kale qofka numberkaas waxa ka lumi kara telefoonka ka lumi kara telefoonka markuu ka lumo lacagtiisi telefoonka ku jirtay awalan marka uu soo wargeliyo waan u xadinaa xanibaad baan saaraa si aan looga bixin lacagtiisi kadib waxa la soo baxaa sim cardki ama sim card kale ayuu la yimaadaa waan ugu wareejinaa haduu PC hore la soo baxana xanibaad oo ma ka qaadanaa hadii uu kala la yimaadana kiiban ugu wareejinayna oo change number baan u sameeyaa luqadaanu kulli ugu adeegno macaamiishanada waa luqada localka luqada Soomaaliga laakiin dokumentiga wuxuu ku qoran yahay saddexda luqadood ee luqada dalka laga hadlo ee luqada Axmaariga waxa ku waa luqada Soomaaliga luqada Axmaariga iyo luqada Ingiriiska ee caalamiga ah ayuu ku qoran yahay bogona sidaas leeg saddexda luqadood isaguna uu ku qoran yahay isagoo kiibsiisa marka wadan ahaan dadka gudihiisa iyo national ahaanba waa bog la fahmi karo localna si gaar ugu adeegay bulshada Soomaalida oo si dhib yar marka hore foomamka xataa diyaarinayno kuwa lacagaha lagu dhigayo kuwa lagu la baxayo luqadooda ayuu ku qoran yahay marka saas dadku ugu adeegayna adeega uu bixiyo Shabeelle Bangi kulli waxa arkaa adeeg aad iyo aad u wanaagsan macaamiishuna aad iyo aad ay ugu qancayso maxaa yeelay dadka ka shaqeynaya waa dadkaagii dadka ku adeegaya luqadda lagu adeegno waa luqadaadii marka qofka bilaadanka ah wax uga wanaagsan luqadiisa loogu adeego ma jirto marka ka macaamil ahaan aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa xaqiiqdii waxaan dhihi karaa waa bangiga shacabka u adeegi lahaa una fududeyn lahaa mataqaanaa ay ganacsigooda iyo lacagaha inay isu gudbiyaan u fududeyn lahaa marka Shabeelle Bangi waxaan leenahay midkii lagu baraaro ee waar Allah ka yeelo aad baan u soo dhaweynaa xaqiiqdii anaga kama taqaanaa dhalinyar ahaan ku kayso hantidaada goob ammaano ah dhigo oo ku dhaqaalayso bangi aad dib u dheefsan karto mustaqbalka ما صندح هذا ما صندح sida hadaba u jeedaan aniga laftaydu waxaan ka mid noqday macaamiisha ku xidhan ama ku xidhnaan doonta Shabeelle Bank buugaygu way furan bangigii rajada Shabeelle amaana iyo adeeg hufan